أحزاب قرنك iyo shacbiga alla qiyaasi karin iyo taageerayaasha maanta halkan isugu yimi kana qayb qaatay inay soo dhaweeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh inaan nabadgelyo ugu soo noqday dalkaygii iyo dadkaygii waxaan ku faraxsanahay inaan fagaarahan idinkala hadlo shacbiga Soomaaliland waxaan dalka ka tegey isagoo dalku nabada oo xasiloon oo nabdoon waxa ayaan daraa in madaxweynihii dalka qalalaasa siyaasadeed geliyo qalalaasa kasta waxa ugu weyn oo ugu xun in dalgalo muran dastuuriya marka madaxweynihii dalkii wuxuu geliyey muran dastuuriya miyaynu yeellaa waxaan shacbiga Soomaaliland iyo daneeyayaasha Soomaaliland oo dhan u sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaadi doono mas'uuliyadda dhibaato kasta oo ka timaada qaladahaas walaalayaal shacbiga Soomaaliland wuxuu dhawaan doortay golaha wakiilada waxaynu ka filaynay inay dalka horumarkiisa ka qayb qaataan aqoon xirfad firfircooni ay ku soo kordhiyaan dalka hase yeeshee sida muuqata khilaafka looga soo waariday madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kala irdheeyey golihii wakiilada ee cusbaa muddo 2 wiigana may fadhiisan waxaan u sheegayaa golaha muddo 12 sannadood ka tirsanaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland marna may dhicin xaalad kasta iyo dhibaato kasta oo dhacday in xildhibaanadu maxkamadaha iska dacweeyaan maxkamadda iyo golaha iyo xeerdejintu way kala madax bannaan yihiin waxaana kula talin lahaa xildhibaanada cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay khilaafkooda ku dhammaystaan fadhiyaal xidhan oo gudahooda walaalayaal waxaan halkan idinka caddaynaya shacbiga Soomaaliland iyo dhammaan daneeyayaasha Soomaaliland in xisbiga wadani iyo xisbiga kale mucaaradka ah wacid midkoodna aanu ka soo horjeedin furista ururada siyaasadda cuqdadna ka qabin furista ururada aqbali doonina labada xisbi waxaan xeer jidaynin ama sharci jidaynin doorashooyinka waxa loo soo kala horeysiinayaa siday u kala horeeyaan doorashooyinka waxa loo soo kala horeysiinayaa siday u kala horeeyaan waxa ugu soo horeeya doorashada madaxtooyada oo ku beegan 13 Noofambar sidoo madaxweyne Muuse wareegtadii uu qoray bisha July 20keedii ugu gudbiyay golaha wakiilada sababta ugu weyn uu soo celiyay waxay ahayd wuxuu ka hor imanayay xeerkaasi doorashada madaxtooyada oo ah doorasho dastuuriya doorashada madaxtooyada waa in waqtigeedii lagu qabtaa doorashada madaxtooyada waa in waqtigeedii lagu qabtaa in saacad lagu daro ma ogolin
إن ساعد لقو درم أقولي بينو أقول لي ترتن كورو الرضا ديار بانو ناي marka ay dhamaato muddada xeerku siiyay jiritaanka axsaabta qaranka diyaar baan u nahay qolada axsaabta diidan waa beenaalayaal waana doorashadiid waa beenaalayaal waana doorashadiid madaxweyne muuse waxaan u sheegayaa inaanaan madaxweyne u aqoonsan doonin marka uu dhammaysto muddo xileedkiisa dastuuriga ah haddaanu qabanin doorashada maalin waxaad maqlayseen xukuumaddoo tidhi ururadu way iska furan yihiin haddii doorashada la qaban waayo madaxweynayaashuna way iska furraan doonaan haddii doorashada la qaban waayo siday u yidhaahdeen ururadaa iska furan madaxweynayaashuna way iska furraan doonaan walaalayaal dastuurka qodobka 730 waxa uu qeexayaa inay kala madax bannaan yihiin waaxaha qaranka ee garsoorka fulinta iyo sharci dejinta waan xukuumadda ugu baaqayaa inay faragelinta qaawan ee khayr dastuuriga ah kala baxdo golaha wakiilada gacanteeda waxaan ku soo guuraanadayaa hadalkayga baaqaan u dirayo shacbiga Soomaaliland waxaana weeye shacbiga Soomaaliland nabad buu u baahan yahay cadaalad buu u baahan yahay doorasho u baahan yahay waa inay gacmaha isu qabsadaan shacbiga Soomaaliland inay ka hortagaan oo ay diidaan oo ay beeniyaan qalalaasaha madaxweyne muuse dalka geliyey si ay u badbaadiyaan qarannimada Soomaaliland si ay u badbaadiyaan qarannimada Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland Allah idin barakeeyo ilaahay madar khayr qaba ayna siiyo ilaahay madar ay naga jabiyo abaaraha waxaan soo gunaanadayaa ballanteenu waa doorasho waa 13 November aad baa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Party